عمر جامع محمد oo kamid ah muwaadiniinta guriga kule magaalada Burco ayaa cabasho baan ka muujiyay garsoorka maxkamadda gobolka Togdheer iyo wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeenta Somaliland sheegeen odayaashani inay gurigiisa hortiisa u sharciyeeyeen nin isagu sita milkiyad fowjariya isla markaasina waraaqa ku saabsan inay meeshan ay tahay dhul u sameeyay wasiirka hawlaha guud ninka lagu magacaabo Cabdilaahi Biixi dhulkan ayaa waxa hore go'aan uga soo saaray maxkamadda gobolka Togdheer isla markaasina u kala xukuntay labada qaybood waxaana ay ku wada qanceen labada qayboodba go'aankaasi ay soo saartay maxkamaddu odayaasha iyo waxgaradkan ayaa sheegay in maxkamadda gobolka Togdheer ay ka cagajiiday inay fuliso go'aankii ay soo saartay sidoo kale waxay odayaashani sheegeen in Cumar Jaamac Maxamed uu guriga dhistay sanadkii 1984 isla markaasina uu gurigu leeyahay saddex wajahadood sida ay ku cadeeyeen mulkiyadda guriga odayaashani ayaa ku eedeeyay wasiirka hawlaha guud inuu isku dhufanayo bulshada gobolka isla markaasina sheegay in wasiirka hawlaha guud ku amray saabkii hore gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabo iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Togdheer in dhulkaasi la bixiyo oo la seeso waxaana odayaashani ugu baaqeen madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland gudoomiyaha maxkamadda sare wasiirka arrimaha gudaha Somaliland inuu wax ka qabto arrinkani aanu qabanay anagu waxaan ka hadlaysaa gurigan Cumar Jaamac Maxamed Baahiye ku qabsaday ninka la yiraahdo ana bixi Cabdilaahi Biixi guriga oo ahaa oo la iibi Cumar Jaamac uu iibsaday xilliga markay 1984 ilaa maanta uu leeyahay sharcigiisa mulkiyadihiisina ay yihiin kuwa halka ku cad cashuurtiisa iyo dheedkii la siiyay dheedkii iibsaday xilliga ay ahayd ilaa intaana uu ahaa isagu nin leh hantida isaga cid ku qabsatay ama cid kale oo lahayd ama cid kale ay isugu yimaadeen aanay jirin haba yaraatay waxaa dhacday xilligu markay ahayd 2000 iyo 3 iyo 2004 in lagu qabsaday dhulkiisii gurigiisii wajahadii guriga oo la degay oo deegaanka la yiraahdo ina Cabdilaahi Biixi maxkamad baa la galay dacwad baa bilaabantay gobolkii iyo racbaanka waxay xukumeen Cabdilaahi Biixi markay xukumeen racbaan baan ka qaadanay waxaanu tagnay maxkamadda sare waxay soo saartay go'aankaas oo odhanaya sida tan waxay ogolaatay asbaabtii racbaanlaha arjigiisa subadiisa ay ahayd dheedka noocaasa kowdii bishii 9aad iyo 2005 waxay diiday jawaab celintii racbaanlaha arjigiisa ku taariikhsnaa 5tii bishii 9aad 2005 waxay baabi'isay xukunkii maxkamadda racbaanka gobolka Togdheer ee lambarkeedu oo ahaa ma DML isbaro 56205 ee ku taariikhsan 6tii bishii 8 ee 2005 sidoo kale xukunka maxkamadda gobolka Togdheer ee lambarkiisu uu yahay DML 119010 ee ku taariikhsan 26 bishii 2 2005 waxay xukuntay in guriga racbaanluhu jihooyinkiisa waqooyi ay tahay wado caam ah jihooyinkiisa kalena waqooyi wado koonfur wado galbeed wado barina dhisme waa guri dhisan halkaas uu ka xigo inta kalena ay yihiin wado waafaqsan sharciga dowladda hoose ee nambarkeedu yahay 2895 ee soo baxay 28kii bishii 12aad 1984 waxay si waafaqsan qodobka 62 xeerka habka madaniga saartay qarashkii iyo dhibaabihii uu geystay ninka isaga waxaana loo xukumay Cumar Jaamac Maxamed Baahiye racbaan buu qaatay wuxuuna galay maxkamadda dibweegis buu qaatay waxaanu galay maxkamadda dibweegistiina waa tan iyadoo xukuman waxaana loo xukumay Cumar Jaamac Maxamed Baahiye dheedkaa la xukumay wuxuu ahaa xukunka dibweegistu waxaa la diiday dibweegista racbaan Cabdilaahi Biixi Ismaaciil uu soo gudbiyey qareenkiisu kuna taariikhsan 8 bishii 2008 waxay ogolaatay jawaab celintii asbaabta dibweegista racbaanka le Cumar Jaamac Maxamed uu soo gudbiyey qareenkiisu maxkamadda sare 26 bishii 6 2009
waxaa la adkeeyey xukunkii maxkamadda sare ee soo baxay 4 bishii 6 2008 qarashkii dib u eegista waxaa la saaray oo ah 2 milyan iyo 100,000 oo laana waxaa la saaray cabdulaahi biixi ismaaciil waxaa dhacday markay labada xukun ay dhaceen in fulin la sameeyey oo liiri fulinta ayada ha fuliyeen qoladan maxkamadda gobolka iyo golaha deegaanka waxaa loo soo qoray warqad fulina oo ugu taariikhaysan 6 bishii 3 2011 waana taa warqadii ayada ahayd waxa la fuliyey habayl ay ma jirto markii taasi ay socon weeday ee loo hoggaansamo waayay fulintii iyo sharcigii dalka yaala markii loo hoggaansamo waayay golaha deegaankiisa in treen waxa la fuliyey waxa la sameeyey fulintii waxa go'aan damaam wax ka soo baxay maxkamadda sare waxaana sameysay in la fuliyo amar bay soo siisay golaha deegaanka iyo maxkamadda gobolka maalinta ayadoo waa la fuliyey jingadii meesha ku taalana waa la dumiyey waxaana la dumiyey taariikhdu markay 2013 markay ahayd taariikhdu muddadiina waa halkaas ku qoranta waxaanay ahayd dheedkeedu 8 bishii 12 2013 markii jingadii meesha laga qaaday ee intaa ay maraysay yaa waxaa dhacday waxaa la sameeyey waraaqo been abuura oo la soo sameeyey oo agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyada warqad soo sameeyey oo uu ka dambeeyay nimankan maamulka aanu dhiibanay ama wasiirada isku magacaabaya ee ka mid yihiin cali iyo niman noocaasi waxaanu sameeyey warqadan uu leeyahay ujeedda warbixin dhow mudane wasiir anigoo fulinaya amarkaagii ka soo warbixinta dhulka fayl lamar 4971 ee ku qoran yahay muwaadin cabdulaahi biixi ee aad horay ii fartay inaan warbixin kaaga keeno haddaba dhulka uu ku yaalla degmada burco markii ay tagtay soona eegtay islamarkaana ka soo sameeyeen naqshadan muujinaysa qaabka dhulkaas u yaallo waxaa muuqata in dhulkaasi uu yahay dhul degaan ah ee aanu ahayn waddo ee uu yahay dhul degaan ah sida ku cad naqshadda halkan ku lifaaqan waxaa soo sameeyey agaasimaha waaxda howlaha guud iyo guriyeenta agaasimaha injineer waxaa soo sameeyey injineer maxamed maal cali agaasimaha waaxda dhulka guriyeenta waxaana amray oo yiri soo sameeyey cali maraxaan seenkiisu lakaa u yahay waxaa intaa raacda waxaa dhacday markii inta ay ku hoggaansami waayeen waxaa dhacday in maayarka in marasabkii qabyo tire ay ula yimaadeen waraaqaha noocaasa iyo qaar kaloo fara badan oo odhanaya meeshaasi ma aha waddo ma aha waa dhul degaan oo la dego waddo ma aha waraaqo noocaasa bay keeneen oo maayarkii qolyo noocaasa ay sameeyeen iyo maayaradii ka horreeyey oo aan waxba ka jirin waxaa dhacday in qabyo tire markaa marasabka ahaa ayaa waxaa dhacday inuu warqad soo qoray marka warqadda loo keenay qabyo tire wuxuu halkan ka caddeeyey ku socota taliyaha qaybta booliska gobolka togdheer ee burco ku socota guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada burco ujeedda fasax dhul tixraaca warqadda simadeedu ay tahay WH isbaara ee howlaha guud iyo guryeynta ka soo baxday ee tirsigeedu uu yahay 329 isbaara 2016 ee ku taariikhsan 13 bishii 10 2013 kuna saabsanayd fasax dhul qorshaha kana soo baxay agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta watiya nimanka hore u soo sheegay hore inay ee jamhuuriyadda Soomaaliland dhulkaas oo uu leeyahay muwaadinka magaciisu uu yahay cabdulaahi biixi ismaaciil sidaa daraaddeed waxaan laydin farayaa waxaa laydinka codsanayaa inaad dhulkaas
aad u fasaxdaan ninka muwaadinka ah ee sare ku xusan waxaa sidaas samaynaya waa barasaabkii oo amray maayarkii iyo taliyihii qaybta kadibna waxaa dhacday meeshii iyada ahayd ee banaaneed albaabkii ahayd waddada ahayd in laga sameeyey saas aad soo aragteen oo imika kabarada aad ka soo duubteen qoraalkaana uu sameeyey ninkan barasaabka markaa ha qabyo tiray waxaa intaa raacda intaa kadib waxaa dhacday waan u qaadan weynay khaladkii noocaas ahaa isku dhac iyo dhibaato horle inaan bilownano waanu yar diidnay waxaanu jeclaysanay inaan sharciga u hoggaansanno oo aanan waxbaba gacanka hadal aanan samayn waxaanu samaynay waxaanu qabannay maxkamaddii sharcigaanu tagnay sharcigaanu ku eeranay waxaanu u tagnay guddoomiye maxkamadda gobolka waxaanu ku nidhi saasaa jirta dib eegistii xukunkii baa naga naloo riday wax fulintiina waa tii la fulay jingadaa laga dumiyey ninkiina wuu soo noqo maanta saas ba meesha ka samaystay saaskan uu meesha ka samaystayna waxaa amray barasaabka taliyaha qaybta iyo maayarka waa barasaabkii hore waa qabyo tira ninka la yidhahdo wey markaa waxaa dhacday inaan maxkamadda gobolka aanu tagnay maxkamadda gobolku CID-da ayuu dirtay CID-dan waxay soo saartay ciqaabtan oo kiiskii madaniga ahaa ayaa wuxuu isu bedelay hab ciqaabeed xukunkii maxkamadda gobolka wuxuu noqday ninkii isagaa in la xidho muddo sanad xadhiga iyo meeshii uu ka guuro dhismihii uu ka dumiyo waana taa qoraalkeedii xukunkii maxkamadda gobolka racbaan buu qaatay oo maxkamadda gobolka racbaanka uu ka sii qaatay racbaankii baan taladaba tagnay racbaankiina wuxuu soo xukumay isna xukunkii kale waa kan waxaanu odhanayaa xukunka maxkamadda racbaanka wuxuu leeyahay sidaas xukunka maxkamadda racbaanka wuxuu soo baxay 12 bishii labaad 2017 number 1 qodobka koowaad maxkamadda racbaanka gobolka Togdheer maxkamadda gobolka Togdheer waxay ka bedeshay xukunkii hore wuxuu ahaa sanad waxay ka bedeshay xukunkii hore ee maxkamadda gobolka Togdheer simadiisuna ay ahayd intaa kuna taariikhsanaa 2021 bishii koowaad 2017 waxayna hoos u dhigtay xadhiga ciqaabta racbaanle Cabdulaahi Biixi Ismaaciil ina hawo maalinta la xidhay iyo intii maalintii la xidhay ka bilaabantaa ilaa iyo muddadii sanadkan waxay ka jirtay 4 bilood ka jirtay waxaana la xukumay sanad waxaana la xukumay 6 bilood xukunkii maxkamadda gobolka wuxuu ahaa sanad xukunka maxkamadda racbaankana wuxuu ahaa 6 bilood xukunkii maxkamadda racbaanka waxaana la xukumay muddo 6 bilood oo xadhiga iyo sayskii uu ka dumiyo sayskii la dumiyadii wax la dumiyey ma jirin haba yaraatee wax laga qabtayna ma jirin cid wax ka qabatayna ma jirto isagana markii la xidhay waxaa loo doonay ambiir sare waxaanu qabtay xaggaa iyo calimarraxan iyo maxkamaddii sare markii xukunka la bahaliyey dhulkii sayska la dumiyey dib maxkamaddii ma la xidhiidheen waan ula xidhiidhnay waanu tagnay waa la duminayaa amar baa la siiyey ninkii naga warsuga baana lagu yidhi annaga sidii baan uga warsugaynay waxaanu diidnay annaga hadal iyo dhibaato horla aanu samayno in la isku dhaco labada beeloodna isku dhacan ayaanu ka dagaalamaynay oo aan tiba diidaynay markii la dhisayey ilaa iyo intaaba waxaa dhacday maxkamaddii sare ayay u tageen qoladii racbaan sare ayay qaateen maxkamadda sare ah maxkamaddii sare iyadoo xukunkii hore maxkamaddii sare lahayd oo jeebi eegistii lahayd oo fulintii lahayd ayadoon ogeyn oo aan moodaya ninkii hore dhulka laga fuliyey uu yahay lagu xukumay inuu yahay ayaa loo tegey isaga guddoomiyaha maxkamadda sare wuxuu sameeyey xukun dambe ayuu soo saaray isaguna waxaanu soo xukumeen sidaatan waxaa laga buriyey xukun waxaa la waxay ogolaatay asbaabtii racbaanka racbaanlaha Cabdulaahi Biixi Ismaaciil ina xaawo maxamed oo 60 jira
lamartu waxay baabi'isay xukunkii maxkamadda racbaanka subadiisuna inta ciqaab tahayd waxay maxkamaddu xorriyadiisii ay u soo celisay cabdulaahi biix ismaaciil ina xaawo maxamed oo 60 jira qodobada loo cuskadayna waa sida tan 232 taa iyadaa waxaa dhacday ninkii isaga ahaa ciqaabta ku xidhnaa ee 6 bilood la xidhay inay maxkamadda sare ay sii deysay iyadoon wax warab aan ka hayn taa iyadaa waxaa jirtaa wax dhulkii ay ciqaabtiin bay ka jebisay wax dhulkii ay ka qabatay haba yaraatee ma jirto kamana hadal xukunkeena kumay daran waxaanu inta aanu ilaalinaynaa ama aanu ka dhowrsanaynaa inay ka dhacaan isku dhac beeleed waxaanu jecel lahay inaanu gaarsiino madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muddo fara badanna waan dul qaadanayni intii aan hore u dul qaadanna arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha waxaan kaloo aanu jecelahay muddadii aan dul qaadan karin waan dul qaadanay maantana way naga soo taaganta waxaanu jecel lahay in madaxweynuhu soo gacan geliyo meesha ayada ah iyo wasiirka arrimaha guduhu sida ugu dhaqasaha badan wixii intaa ka dambeeyna waxaa imanaya isku dhac beeleed intaasaan urkigeygi waxa ay soo gaadhaan in miidiya la gaadho lagala maarmi waayey in heerka dawladda ilaa madaxweyne ay gaadho arrinkaasi waayo markaad aanad jeclayn dhib iyo inay dad isku dhacaan waxaad jeceshahay inaan cid hadhow ku odhan arrinkaasi annaga nama soo gaadhin markaan ku soo noqdo tan maxkamadda dastuurigaa waxaa loo sameeyey in dadku ku kala baxaan nin gar hela iyo nin gar waaya halkan waa lagu kala gar helay markii lagu kala gar helay shacabku inuu isagu ninka wax loo xukumay gacantiisa ku fushado ninka sharci yaqaanka ahi kuma degdego waraaqdii fulinteeda la soo qoray sidii ay u sugayeen Cumar Jaamac uu sugayay ee isaga in wax loo fuliyo loo sugayay ayaa gurigiisa siyaas laga hor dhisay oo boolis beelaysan ama si gaar ah loo soo kaxaysay oo aanad fahmayn hadiya jaraale mararka qaar aad eegto qaab inaga yar dhiman ku yimi oo khatar gelin kara booliska iyo shacabka u yimaadeenba waayo qofku sharciga uu aqbalaya katiinada gacanta u dhiganaya markuu dambiile yahay laakiin markuu sharcigii oo nin gacanta ku sito oo sidoo doonay uu yeelayo uu arko khatar badan bay keenaysaa marka halkan waxaan imika madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha aanu gaarsiinaynaa dee burcam madaxda Sheekh Bashiir baa ka habaaray baa leeyahay habaarkii Sheekh Bashiir kulli wuu nahaystaa oo wax yar oo basiid ah oo guri arrin la isku qabtay dhamaadayba ayaan haddana sidii loo fulinayay hawsheedii aanay dhamaanayn guriga nimankaas way seeseen dad badan baa imika godoodsan annagaana ka joojinay inay ficil sameeyaan oo aan horta waxaygiyoodiyo sharciga iyagoo haysta haddana aanay sharci darro ku kicin maxkamadda sare ayaa arrinkan soo xukuntay soo dhamaysay ninkaana markii dambe uu dambiga galay markii ciqaabtii lagu sameeyay waraaqda jabinaysa waxa ku qoranuun in ciqaabtii laga jabiyay laakiin maxkamaddii kumay soo qorin wixii dambigii uu ku galay sida uu ka yeelayo marka waxaanu leenahay dawladdu inay isku qasanta maaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo waxa la mid dadka la midkiina inay marka ay ummadda u shaqeynayaan ummadda u wada shaqeeyaan weeyaane haddii marba laba nin oo burca ka soo carray intii koox Hargeysa ugu tagaan waxaan Hargeysa ku arkayay intaasoo xildhibaan oo joogo nin waliba arrin yaroo qoyskooda uu sido qaran kale waa loo doortay marka madaxweyne arrinkan soo farageli khatar bay keeni kartaa sakadii waa taa la sawiray waa dhulka la wada sawiray guriyihii dhinaca ka xigay oo dhammi waa guryaha safka isku haya waa guryaha dhagaxooda ka soo jeedo guryaha wajahada leh ma aha meel maqloolo iyo meel hawlaha iyadoo maxkamaddii sare soo xukuntay in hawlaha guud oo haddana ay u soo diro agaasimaha hawladii guud baan hayo aniga haddana ka saaray wax sharciga u baneynaya anagu ma garanayno maxkamadda sare ayaa ugu dambaysa heerka sharciga ee dastuurka ilaa doorashooyin marka la isku qabsado ilaa ta madaxweynaha ilaa mid walba
maxkamadda dastuurku iyadaa soo dhamaysa saxiixaasaana la rabaa marka waxaanu leenahay si degdeg arrinka ha loo eego guddida nabadgelyadu ha eegto intii waxgarad iyo intii nabadda jecel reer burcaba ha eegto inta reerahan ka wax isku arrinku ka dhaxeeyo nabadda jecel ha eegto arrinkaas in badan baa la dhidhiyay in khatar dadku dhexdooda ku keenana oo maanta waa mitira yar wax ka badan dadka ka dhaxmeeya hadaan nasiib darro inagu noqonaysaa intaasaan kaga baxay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ninkii dacwadda dhulka waday 2003 ayaanu iskala baxnay dawladda hoose anigu maxkamadda waxaan ka galay dawladda hoose oo nimankan dusha naga saartay sidaa daraadeed ninka barasaab ku xigeenka ah dib jir la yiraahdo ayaa nimankan meesha soo dejiyay oo noo keenay dhulay ku lahaayeen ma jirto ilaa imaka iyo ilaa waqtiga inta ka dhaxle dawlad hoose horta meesha lagu haysatay oo halka dhuleynayay oo barba joomitir soo diranaysay ee wax meel kale ka yimi maaha ninkaasuna niman u diris ahayn iyo nin wax laga dhaxeeyeen toona maaha guriga jahooyinkiisu waa sidii milkiyadihiisa lagu bixiyay labadii milkiyood sidii arkaseen midna 180 bay ahayd midna 2001 bay ahayd sidoodii bay waxna kama aan bedelin sharcigii waxaad moodaa in laga talaabsaday oo gacmaha lagu laabay afar xukun oo maxkamadda sare leedahay baa halkan yaala waa maxkamadda sare soo riday oo afartuba anaga noo dhaceen halkan waxa yaala fulintii 2011 ninka maxkamadda racfaanka haysta markuu gobolka haystay uu fuliyay intaas iyadoo ay jirto ayaa afar jeer oo dambe iyadoo aqal hogaaminayna lagu soo weeraray afartaa jeerba waan isku baabiinay waxa dhacday imaka seeska imaka meesha yaala ee bishii 12 afarteedii la seesay waraaqda anagu cambaaraynana waraaqda hawlaha guud ee wasiirku soo saxeexay agaasimaha saraar iyo cayn la ka timi in lagu seesay baan halkan ka cadaynana waxaanu cadaynana bara saabkii qabay markaa joogay inuu amarka bixiyay oo dawladda hoose iyo taliye qaybeedkii guutaale labadaa uu siiyey sharcigii maxkamadahana laga talaabsaday sidaa daraadeed intaasu markay dhacday habeenkoo isku jira in meeshii weerar lagu soo qaaday iyadoo ciidan dusha ka ilaalinayo oo ay beeleysan tahay subaxii markaan ku waabariisanay waxaan aragnay meeshii seeskeediiba la dhameeyay maxkamadda ayaanu tagnay maxkamadina hawlba CID-da loo diray CID-da way soo baadhay waxay u soo gudbisay dambigii xeel ilaalinta ninka kiiskii waa ku sogtay xeelka ciqaabta guud bay ku soo eedaysay waana lagu qaado waa lagu xiray maxkamaddii racfaanka markii dambe 6 bilood ayay ku xukuntay 6 bilood sidoo ugu xukunaa ay u ilaahay racfaan baanu qaadanay wax gal la yiraahdo oo racfaan u gudbay ma jirto waraaq uu iskii u qortay baa gudubtay raggii wasiirada ahaa ee ka dambeeyay baana waxa ka hawlgalay caaqil fara badan maxkamaddii sare u tageen dhulkaana dawladda hoose noogu celiyaa leeyay ninkaana sii daaya iyadoo aan eegin sharciyadii meesha yiilay iyo dhibaatada meesha ka imanaysa waxa la dhulkii dawladda hoose aan ku celinay ninkiina waanu sii daynay sidaa daraadeed waxaanu leenahay marka hore waxaanu cambaaraynaa wasiirada waxa hawsha galay ee arrinta foosho xil la sameeyay iyo dawladda hoose oo aan ilaa beriga 2003 oo aan maxkamadda ka galay iyo ilaa imaka inta ka dhaxla faraha kala bixin horta waanu cambaaraynaa kulayaasha qaranka madaxweynaha intii nabadda jecel labada suldaan ee labada reer ee meesha isku haya la isku dusha la iska saarayo ah oo labada suldaan maxamuud guuleed iyo maxamuud xaaji xuseen iyo intii nabadda jecel waxaanu leenahay arrinkaas ka hortag buu leeyahay wax ka daba taga ma yeelan doono imaka hala soo farageliyo aanana dulqaad naguma hadhin assalaamu calaykum saasan ka baxay anigu waxaan ahay nin in badan jiray khasaare iyo faa'iidaba ninka warhaya dadka imaka halkaa ka hadlaayana ninka ugu weyn ee odayga waanahay waxaan doonayaa intaa inaan dhibaato horaan loo arkay oo loo arkay khasaaraheeda la arkay inaan dhibaato halkaa ka dhicin waxaan sheegaynaa wax allaale iyo wixii halkaa ka qayb galay mooyaane dawladda wixeeda kale iyo wixii madaxa iyo wixii labada suldaan iyo wixii nabad jecel ba horta meesha in la arko inaanan anagu wuxuu sheegin in la arko gurigaa ma nin leh mise nin kale oo halkaa wax ka dhisa nin leh haddii uu ka dhisi karaa nin leh halkaa wax nin kale oo aan cidina siinin wuxuu ka dhisi karaa maaha sharci maaha boob iyo dagaal wuxuu ku qaado mooyaane wax sharci ahoo uu halkaa kaga dhisi karo ma jiro
waana la arki karaadoo dee waxaanu leenahay hal arko hala eego iminkana waxaanu leenahay aqalkaa habeen baa lagu soo duulay markii lagu soo duulay cid la weydiiyey anigu war ma hayo cid allaaliyo nimankan cid wadatay ragga iminka halkaa laga sheegaya anigu nina ma aqaan nin aan aqaanaa ma jiro laakiin rag uun dee wax mahoobiyaya iyuunbaa habeen sidaas kaa dhisay waxaanu leenahay wax allaaliya wixii waxgarada ee naba doonaya ee dadkaa dhibaatadiisa iyo qalaanqalkiisa aan wakhtigaa abaartu haysa doonayni halkaa ha eego haddii ay meeshaasu ay tahay meel nin le mooyaane nin kale uu wax ka dhiso carruurtaa garanaysa wuxuu yidhi waar maannagaa walan mise cadan baa laga heesayaa carruurta yareer baa garanaysa inay waddo tahay oo aan nin meeshaale mooyaane nin kale aanu iman karin oo ay guri wajahadii tahay waar geed haddii nin uu beero oo la yidhaahda hadhkiisiina nin kalaa leh caqli maaha ninkani dee gurigiisii weeye meeshan laysku haysaa wajahadiisii weeye meel looga baxo ma leh meel allaaliya meel looga dhaqaaqo ma leh hanalala eego hadalkayaga yaan loo qaadan yani hadal dhaanwade yaan loo qaadanay gurigaa intaan dhibaata ka dhicin halkaa ha la eego intaa dhibaataanu hor taagannahay waxa rag arkaya dee annaba waanu arkaynaado ragga dhibaatada u badheedhay dee waa marka layska celiyo ninka waa ta lagu naarmuto weeye haddaan ninka sidaa kuu gale ee gurigaaga iyo maalkaaga kuugu yimaada haddaan iska celin dee waa ta lagu naarmutaa iminka waxaanu taagannahay dul qaadanay oo in badan 15 sannadood yaa gurigaa la daba socday oo sidaa loo daba socday iminka waxaanu taagannahay dee waanu wax iska celi baanu iminka taagannahay waxaanu taagannahay wax iska celi dee ilan waatan waa lagu bareeriyey yaanu taagannahay annagu maayarka siiyey iyo bare saabka siiyey midna waxaanu leenahay annagu kumanaan kalsoonin mana rabna ee dawladda ha eegto dawladdu wixii nabad doonaya ee dadka qalaaqalkiisa ka xumi ha soo galaan oo ha eegaan oo meesha nalala eego wixii dhibaato ee ka yimaada wixii geystay yaa akhriya adduunka wale si kastaba ha ahaatee arrinkan ayaa sababi kara haddii aan wax laga qaban khalkhal nabadgelyo